Ciidamada booliiska magaalada Mandera ayaa maanta soo qabtay in looga shakisan yahay ka ganacsiga maandooriyaha kadib howlgal ay sameeyeen. Booliiska ayaa sheegay in eedeysanahan lagu helay 50 xirmo oo yaryar oo xashiish ah, kuwaasi oo uu ku qariyay boorso yar. Intii lagu guda jiray baaritaanka, waxaa sidoo kale la soo helay mindi uu sitay tuhmanaha, kaasi oo uu dhabarka ku qarsaday. Agabkaasi oo dhan ayaana ciidamada u haystaan cadeymo ahaan, waxaana la soo bandhigay sawirka iyo tuhmanaha. Ninka la qabtay ayaana haatan ku jira gacanta booliiska, waxaana la filayaa in maxkamad la horgeeyo maalmaha soo socda, iyadoo sidoo kale baaritaano dheeraad ah weli ay socdaan. Ciidanka booliiska ayaa mar kale adkeeyay dadaalkooda la dagaalanka maandooriyaha iyo dambiyada la xiriira, iyagoo xusay inay sii xoojin doonaan rondooyinka iyo howlgallada lagu xaqiijinayo amniga iyo badqabka bulshada. Iyadoo maalmihii la soo dhaafay ciidamada dowladda dhexe iyo ciidamada dowladda countiga Mandera ay sameynayeen howlgallo ka dhana daroogada sharci darrada.